السلام عليكم أصحابتيدا دمانتين والسلام soo dhawaada guriga gobonimo waxaa idin leeyahay guuleysta insha Allah la-aantiin abaar waaye dadka kaloo ifiirsada waxaa le walaalayaal iskareebka la isaaray insha Allah guriga gobonimo asxaabteyda dhammaantiin waa mahadsantahay kuwa isaaray kuwa isaaraba dhammaantiin waa mahadsan jannada firdawso ayaa noo balana caawa ayaan maxay ka hadlaynaa koleyta waxyaaraa kusoo siyaaday insha Allah safaaradda Soomaaliya u imaatay ayada noo faahfaahinaysa hadda wiilasha waa arkayna haddii Ilaahay yiraahdo wax yar aan dhageysana bal markaas ka bacyan ka hadlaynaa hadda Soomaaliya laba sarkaal oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya abti abees iyo waliba yani bile ما شاء الله سيدا دوغيدين با أبس وحو كميد أها دادك يعني سيدا غارك إلا سعودي لكن مركان وحاوي وحو كسعودي سفارة الصومالية وأرنتي ذا سوفر الجلسي وأرنتي ذا يعني جعل إني وحكا قبطان إن شاء الله تعالى وأن رجينا يا وحاروم هاد علنا يا لما سفارة الصومالية مروال بيجوغان با دبلوماسيين كشقيسة دمانتي waxaan leeyahay aad uma santiin sida aad isku xilqaanteen yani sida aad u jeceshiin bulshadiina ina ugu adeegtaan sababtoo ah qof walba oo meel loo idmada ama meel yani la dhaho meeshaan joog yani waxa loo idmaday ama inay wax u qabtaan bulshada Soomaaliyeed aad ma sha Allah safaaradana soo booqatay waxaan ka wada hadalnay waxyaabaha kiiskii ku saabsan iyo waxyaabo kale oo fara badan insha Allah taala wixii ka soo kordhan waa arki doonaa ama sidee wax noqdaan waxaan rabay inaan idin sheego in safaaradda Soomaaliya ay imaaday oo aan wada hadalnay ayagana kiiskii ay la wareegeen insha Allah maalmaha soo socdana ee wax ka soo cadaad doonaan insha Allah saan jeclahay iyagana waxaan leeyahay Ilaahay idin garab galo waan ku mahadsantiin shaqada wanaagsan aad u haysiin shacabkiina sababtoo ah shacabka maanta waxay wax ku tahay dawladana waxay wax ku tahay shacabkeeda ma sha Allah aad way mahadsantiin markii xigto yani waxaan u sheegayaa qof walba oo maanta aniga isoo hanjabaayay maanta kadib inaan isqari doonin qof walba oo isoo hanjaba ama qof walba wax isoo dhaw waxa waaye markaan kiiskeyga waxa waaye safaaradda iyo wax walba way la wareegeen wax walibana waxaan la wadaagi doonaa yani safaaradda wax walba maanta aniga ugu dhahdo ama wax waliba oo aniga aad soo wacdo ama igu hanjabto maanta kadib magacaaga saddexan ama saddexan ahaay ama magacaaga weeraan aaneystada xataa tahay waxa waaye lambarkaaga waxaan geyn doonaa safaaradda insha Allah waxaan rajeynayaa in yani talaabo sharci laga qaadi doono biri meedii kartid iimaada sheegin malii sheegin saam u maleeyeen insaan ma aheenin hadda iska ogow waxa waaye nin ku digay kuma dinin ما شاء الله waxaan u mahad celinayaa labada safiir ee maanta sida wanaagsan ila hadlay sida wanaagsan ila kulmay ما شاء الله aad ugu faraxay kulankooda inkastoo marka horeba safaaradda yani aysan ka marneen maadaama abees uu ku jiro abeesna waa diblomaasi safaaradda ka tirsan ما شاء الله aad dhammaantiin waxaan idin leeyahay insha Allah wax walba kiiskeyga ku soo kordho ama wax walba yani soo kordha maanta waa idin la wadaagi doonaa idin sheegi doonaa maalmaha soo socdana waxaan rajeynaynaa insha Allah guul هذا واحد لا سود بعد ورك إذا كم بدينا يم صوته halkaas ayaanati insha Allah waxaan leenahay guulay hortakum marka hore guul iyo gobolnimo ku rajeeyo insha Allah adigi inta kula socoto oo kula shaqeeyo oo garbahaga taaganba lamaantii waa guulaysa iyo inta arintaada ka danqatay oo dhan guul iyo gobolnimo leeyahay dadka u hanjabay gabadhaas masaakinta war gabadhan ayada dhibana ah qofku markuu dhibana yahana wax kale looguma sii daro qofkan maskaxdeeda deemishka gaarmo ogdi Soomaaliya adinku waxaad rabtiin inaad dadka sii dhibtiin qofka asaga dhibana ah war qofkan asaga dhibana ah qof bini aadan oo asagoo kala u dhibana u yahay oo dhaawac gaarsi oo gacanteedii garaafeeyay oo naftaada balka waran adigoo iska jirin qofkii kaa naxiya deemishka oo gaara cawada Ilaahay ayaa ogaa kara bini aadan ogaa kara ma jira gabadhaan Ilaahay ayaa og dhaawacu gal xataa heer waxay gaartay ay banaanka kaligeed aadi weys heer waxay ay gaartay cabsi ay guri kula xirnaato war Ilaahay ka cabsada war miyaalnaan ogay godkii 2 mitir ah oo liileys geynayo god 2 mitir Ilaahay dulmiga asaga naga xaaraantinimay Ilaahay naftayda ayaan dulmiga ka xarimay adinkana hays dulminay bini aadano muxuu yiraahdo kale
qofku anfici karta qofku ugu anfici karta intay jinnigoodii insigooda ku kulmaan kuma anfici karaan dadkoo dhan ku kulmiyaan kuma anfici karaan wax ilaahay kuu qora moogiye hadday inay kugu dhibaan shay kugu dhibaanna ay rabaan hadday jinnigoodii insigooda hadday isku soo yartaan kuguma dhibi kara shay ilaahay u qoran gabadhan dhibkan la gaaray waa wax ilaahay u qoray qofna kama dulqaadi karto qofna ma dhibi karto laakiin adiga maxaa laga rabaa 7 nala faray ee ku jirta qofka madluumka in loo kaalmeeyo ayay ku jirtaa hadday daalim tahay xaataay dulmiga xaataay xaqa inaad qofka u sheegto laakiin ayadu dhibanaba waayo daalima baanba ayadaa la dulmiye madluum waaye dacwatil madluum ruuxa la dulmiye dacwadiisa ka cabso qofka la dulmiye iyo ilaahay qofka la dulmiye iyo ilaahay dhexdooda xijaab ma ahaanin marka ilaahayow hadday idin tiraahdo ayaa inku filan war iska dhaafa waa dhibane waa loo kaalmeeyaa hadday niyad dhis iyo madax salaax inka weysan inaad sii dhibaataysiin maba aanbo waa xaaraan ani waxaan buu arkaaba riisinka gabadhan inuu riisin fiican yahay maxaa yeelay gabdho badan oo saas loo geli lahaa ayaaba badbaadayaba oo dhibanayaal ah marka say digtoono u noqdaan gabar kasta inay isbadbaadiso sharaftaada in lagu cayaaro iyo naftaada inay go-do aniga waxaan ka jiray inay naftayda go-do maxaa yeelay naftaydu xilliga ilaahay u talagalay dhimanaysaa laakiin sharaftayda oo lagu cayaaro iyo nafteeda waxay ka horeysa sharafteeda kabla gabar jirta waaye markay saas ayadu isu sharaftay qof walbana hadduu isagu sharfo qof sharfay ma laha nabadgeliya gabadhan dadka u ribaynayo oo u soo duubayo codadka dhibaataynayo warwa ilaahay ka cabsada god 2 mitira lagaaga soo tagaa ilaahay uga cabsada gabadha masaakiinta hooyooyinka iyo aabbayaasha Soomaaliyeedna waxaan uga digaa gabadhooda haddaysan raacaynin oysan la degaynin inaysan meel u dirsanin gabadhan waalidkeed inuu nool yahay inuu dhinto ilaaha allahu aclam waa iskaga dambaabayna maahan ilaahay waxaan ka barahabarele qalbigaaga inuu kuu dejiyo oo ilaahay iyo samsama kuu mariyo casalna kaaga dhaqo guul iyo gobonnimaan kuu rajaynaa habaryare ilaahay ha kuu qalb ilaaha macaaga ilaahay isku xir hana cabsoone ilaahay awoodda ilaahay wax walbo ku dhac wax ilaahay kuu qadara waayo yaa hooyada 4 bilood caloosheeda markaad ku hel aan lagu qoray mana gafaysi wixii lagu qoray waa guulaysanaysa hala isniya jabin kuwaas ka fiican oo hareeraha hooyooyinka inay garab ku taagan taas ugu guul iyo gobonnimaan ku rajaayaan insha Allah guulaysaa waa guulaysanaysa haniya jabin yaa isa ku niya jabin bini'aadan maxay ahayd iska daciifa insha Allah ayaan cafiye masaaxan leh walaalayaal inaan qof caayimar laakiin gabadha la mid kaliya gabadha ayaa dhibana dhibkada ayaa loogu sii darin guul iyo gobonnimaan idin rajaynaa maantiin